haddaba haddii aad weydiiso keen bartaa maanta computer science iyo IT waxaan ku dhihi lahay ogow kombiyuutarka maalin waxaa jirtay uu ka weynaay guri dhan kombiyuutarka waxaa jirtay maalin uu ka weynaay guri filla ah uu ka cuslaay gaari dhamo loori ah ama taraag ah uu ka qaylo badnaay matoor uu ka dabcun badnaay xaafado dhan ama tuulo laakiin maalin kasta soo usii yaraanayay maanta waa kan maraya gacantaada inaad ku wadato kombiyuutarkii maxaa yeelay taleefka aad gacantaada ku wadato waa kombiyuutar yar waxaa cajiiba marka kombiyuutarka halkaas ka yimid maantana halkaas maraya annagu in aanan ku lahayn in aanan waxba ku darsan haba yaraatee ama ay aad u yar yihiin waxa aan ku darsan guud ahaanba laakiin IT-ga maanta qayb ayaan ka noqon karnaa qof kasta ayaa qayb ka noqon kara qof kasta ayaa baran kara qof kasta ayaa horumari kara oo ficlan waana ogahay dad badan oo Soomaali ah oo IT-ga horumariyay ama waxyaabo cusub alifay ama qaab cusub oo isticmaalay ayaa jira marka anigu waxaan ku dhihi lahaa haddii aad labadooda midood baranayso baro IT-ga asaga ayaa ka fursado badan ka baranjiyaal badan asaga ayaa kuu suurtagelinaya in aad xataa marar badan aadan qof u shaqayn ee adigu wax aad leedahay inta soo saarato aad ka shaqaysato ama wax aad leedahay ganacsiyo aad leedahay aad u isticmaasho IT-gaas in aad wax ku fududayso ku hormariso shaqada ay kuu fududaato marka waxaan ku dhihi lahaa ku talin lahay inaad barato IT-ga. Wassalaamu calaykum.